kulankan ay soo qaban qaabiyeen odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye isla markaana ku sugan magaalada Tani Nairobi ee xarunta wadanka Kenya isla markaana sidoo kale ay ka soo qayb galeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa mid taasi tiiraanyay leh ugu dirayeen Allah u naxariistee eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo 23 bishan ku geeriyooday wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta taasi oo ay taasi tiiraanyay leh uga direen dhammaan dadka Soomaaliyeed meel walba ay ku sugan yihiin waxaana halkaasi ugu horreynba ka hadlay gudoomiyaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Hawiye Maxamed Xasan Xaad sida la og yahay oo caamka waxa dhintay nin wadanka Soomaaliyeed taariikh dheer ku lahaa ahna madaxweynihii hore Soomaalida mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaan la soconaa inuu shalay ay geeridu ku timiday waxaan marka leenahay oo nooga aadan Allah u naxariisto ilaahay kitaabkiisa midigta ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ummadda Soomaaliyeed dhamaanteedna sabar iyo baan Allah ka siiyo sidoo kale waxa isna ka hadlay halkaasi afayeenka odayaasha dhaqanka Hawiye Axmed Diiriye Cali oo ku sugan isna magaalada Tani Nairobi kaasi oo sheegay in marxuumka isaga oo jooga wadanka Yemen ay qadka telefoonka ku wada hadleen isla markaana xurgufo hore oo u dhaxeeyay halkaasi ku wada xaliyeen haatan uu marxuumka ka yahay cafis Cabdullaahi Yuusuf Axmed ilaahay waxaan uga baryeynaa ilaahay naxariistiisa janno inuu siiyo annaga hadda waxbaan dhex maray waqtiyada kamida waa iska cafinay intuu noolaa baan is aragnay waxaan ku kulannay oo telefoon uga wada hadalnay isagoo Yemen jooga ayaanu telefoon ku wada hadalnay waa ku heshiinay telefonkii waa isku cafinay awalan hore aan saaxiib ahayn buu ahaa markaa horteed ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay ninkaasi nin wuxuu ahaa madaxa oo waxgarada oo qaali ah ninkuna mar hadduu madax yahay oo mas'uul yahay ninna waxbuu u galaa ninna waxbuu ka dhib sidoo kale waxa ayana kulankani ka hadlay tacsida ahaa qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya madaxweyne mudane Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariisto maanta hoosta inuu jooga waa madaxweyne Soomaaliyeed buu ahaa geeridii naxdinta lahayd oo ku timid madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed aad iyo aad uga tacsiyeyna aniga waxa laga yaabaa si kastaba kulankan ayaa waxa uu noqonayaa ama waxa uu qayb ka noqonayaa kulamo fara badan oo jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Tani Nairobi ay tacsi tiiraanya leh u dirayaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Cabdirasaaq Miro Dhoore Hon Cable TV Nairobi Kenya